mid waalan ayaa hadda ka hor laga fasaxay isbitaal dadka waalwaalan. waxaa lagu sii qaaday gaari ambulance ah. markii gurigiisa loo soo dhowaaday ayaa ninkii yidhi, waan imaaday gurigayga ee idajiya. saa waxaa la weydiiyey, maxaad ku garatay gurigaada? wuxuu yidhi, labadaas cunug ee iskoolka u socdo anigaa dhalay. haddana haweenay baa soo baxday. wuxuu yidhi, taasna waa xaaskayga. haddana nin baa soo baxay, kulaha kaasna waa aniga oo shaqo u socdo. nin reer baadiye ah ayaa dameer ka fakaday. dameerkiisuu u raadinayay ayuu magaalo yimid. magaaladii markuu yimid ayuu waayay cid martigeliso. kadib hotel baa la geeyey. qolkii la geeyey ayuu ka yaabay quruxdiisa iyo sida ay sariirta u labisan tahay, iyo isaga dharka uu qabo wasakhdooda. wuxuu go'aansaday inuu sariirta hoosteeda seexdo, kadibna albaabka uusan xirin si loogu maleeyo inuu qofna qolka ku jirin. wiil iyo gabar isla socdaan ayaa haddana yimid hoteelkii. ninkii hoteelka mas-uulka ka ahaa wuxuu dejiyey isla qolkii ninkii reer baadiyaha ahaa la dejiyey. sidii ayay qolkii ku degeen. kadib waxay bilaabeen in ay labadoodii iska wada sheekaystaan. wiilkii ayaa gabadha ku dhahay, macaanay, markaan ku arko adduunka dhan ayaa la ii hor keenaa jecelkaada dartii. ninkii reer baadiyaha ahaa intuu hadalkii maqlay ayuu sariirta ka soo hoos baxay, kuna dhahay wiilkii, walaalow, adduunyada dhan haddii lagu hor keeno dameerkayga maa iga dhex raadisid. nin cabtooy ah ayaa waraysi laga qaadayay. kolkaas ayaa lagu yidhi, naftaada ka hadal. markaasuu yidhi, magiceyga waa cabaaye, waxaan ahay wiil, 5 salaadoodna waa dukadaa. waxaan dhashay 1950kii, waxaana jiraa 28 sano. dhalashadaydii waa suudaani, laakiin waxaan haystaa baasabor jabaniis. waxaan ku dhashay england, gaar ahaan magaalada new york. waxaan aadaa jaamacadda cairo ee u dhow dalkaasi brazil. mid cabtooy ah ayaa la weydiiyey, sidee jeclaan lahayd in ramadaanka laga dhigo? xariifkan kulaha, waxaan jeclaan lahaa in laga dhigo sida koobka adduunka 4 sano hal mar la qabto, soomaaliyana ay ka harto koobkaasi.